بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنت وحي صورة قصي إن ورئيس كوبان لا يشو صاحبكي سنفر عبد الملك مصعل دون عبد الملك سلو صاحب دوهي دولير waxaan rabaa su'aalo kooban inaan ku weydiiyo oo ra'yiga bulshadana inta badan u badan marka hore waxaad iga warantaa ololaha u kaalmay kuwan si kooban igu sharax bismillaahir rahmaanir rahiim waan islaamaya adiga iyo maxaa inteena daawanaysa assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ololaha kaalmay kuwan waa olole maxaa warbaahineed oo istusa dadka jilicsanaya inta ladan waxa uu intii aanu ku jirnay ama geediga aan la soconay warbaahinta ayuu nagu soo biiray dhexda ayuu nooga soo kordhay waxaan noo imanayay maxaa dad jilicsan ayaa laga yaabaa in labadii bilood mar noo yimaadaan sanadku 2011 ayuu maxaa bilaabmay qoyar buu socday marka in la soo bandhigo oo la yiraahdo maxaa qofkan dhibaataysan ummadda waxa loo taro kiiba maxaa sii kordhay muqbahayaashii badanaaba wax way koobeen oo inay xaaladaha baahiyaan laakiin Cabdi Malik ahaan iyo asxaabtii la shaqeynayay waanu iska wadnay kolaan muqbahayahan ka shaqeynay iyo Facebook-yada iyo baraha bulshada in qofka u dhigno ayay noqotay wixii baabatay oo markaas aan u sameynay magaca la yiraahdo kaalme kuwan sumad gaar ah u yeesho runtii barnaamijkaasi waxa weeye meel badan guul ka gaadhay ilaahay mahadi xaalada badan baa runtiina soo maray oo yani markaan soo xasuusto yani si gaar ah ii farxad gelisa oo yani inaan guul gaadhay yani qof yani guul ka gaadhay nolosha ayaan dareema marka xaalad aan ka bixino dib idinka ilaahay salahan nin ku xidhnaa baro 8 sano oo aan la garanay ehelkiisu xitaa aanay ku ogaan jeelka ayaa loo yar xanuunsanayna oo dhimirka ha yani waxa weeye bifadli illah barnaamijkaas ayaan maxaa kaga saarnay in yaro shaadiye la carabkeedu aad u weynaa Malaysia ayaa loo diray kadib marka dhaqaale loo soo ururiyay ninkii maxaa de silsiladu maxaa lugta jartay alxamdulillah maanta barco degan guriga ayaa barnaamijkaasi looga dhisay yani maxaa dhaqaalana waa loo hayaa yani xaaladaha noocaas oo kala yani barnaamijku barco ka bilaabmay iminka maalmahan bariyahan dama Muqdisho nimaadna saan barnaamijka maxaa runtii u ballaadhino ergaabo waan tagnay laascaanood waan tagnay yani miye badan baan maxaa tagnay waxaan isku daynaa in barnaamijkaas bal gaarsiino yani goobo badan barnaamijku marka kaalme kuwan yani maxaa saas ku bilaabmay insha Allah waxaan rajaynaynaa maxaa inaan maxaa warbaahin imika waxaan ku fikiraynaa inuu qaabkan warbaahintan uu yahay inuu ka gudbo yani hay'ad maaha hay'ad yani maxaa sida qaabka hay'adaha u shaqeysa nidaamka hay'adaha le maaha marka waxyaabaha caqabadaha naga kulmay hay'ad maadaama aan ahayn dib baa maxaa naga hortimaado laakiin marka ay noo timaado hooyo ilmeynaysa iyo maxaa qof xanuunsanay xaaladiisa aanad baajin karayn dul yaro maxaa ma joojin karaysid laakiin insha Allah waxaan ku fikiraynaa maxaa istiraatiijiyad inaan u sameeyno ka duwan tan aw samaysan waa tahay taa waa coldan waa lagu bartay waa khayr Allah ku siiyay taas oo ku mahadsan tahay marka siyaasadda timaado dad baa kugu dhaleela balko ka war yow inta adduunka la joogo dhaleeli maxaa ma dhamaato bani aadamku waxa weeye hadduu wax sameeyo يعني دليش محوها كما بايسو وسيدي جوحة iyo inankii maxaa la socday ee dameerka wateen marba maxaa hadal kala laha marka siyaasaddu dul yaro waxa weeye waa qayb nolosha kamid ah arrimaha bulshada arrimaha siyaasadda arrimaha diinta arrimaha caafimaadka bi'adda ama deegaanka inagu hareeraysan wayna saameynaya meel kama tirsan cidna uma shaqeeyo dawladna uma shaqeeyo laakiin aragtidayda waxaan ku baahiyaa baraha bulshada maadaama wixii aniga isaameynaya oo taas siyaasadda laga yaabaa inaad aragtay ama cid kale aragtay laakiin arrimo badan oo aan ka hadla jira oo xataa maxaa tii aqoonta maxaa marka qaarkood aan ka hadala marka wixii way ku saameynayaan marka waa inaad mowqif ka yeelataa noloshana waxaan go'aansaday wax kasta oo soo kordha oo soo biira inaan muujiyo meesha aan ka taaganahay sababtoo ah dareen baa igu jira inuu ilaahay weydiinayo waxa maxaad ka tiri aamuska مثلا dulmi aad ka aamustaa de wal weydiinaya codkaygu imika meel fog buu gaaraya saameyntiisu leeyahay marka waxaan u adeegsanayaa inaan maxaa codkaygaas uu aan raad ku reebo hadii uu dulmi jiro aan yiraahdo dulmiga hala joojiyo hadii uu xaq jiro maxaa xaq hala raaco ummadii runtii waxay u baahan tahayna inay saa wada sameeyaan dhamaanteen aniga qura maaha xagga Facebook aan ku qoro Facebook-aygu waxa weeye waa book ii gaar oo kale oo xasuus qorkayga oo kale oo laakiin dadka ila arkayaan Facebook waxa weeye qof dadku madax waxa ku soo dhaca wuxuu ku fikirayo arrimaha marka dadkii umad la wadaagaysa sida buuga badanaaba gaar buu ahaan jiray laakiin kiyo dadka maxaa la wadaagaya maaha laakiin mu'asasad warbaahineed oo gaar ma aha
واتاي سياسة مركا أن لنا هاي سياسة كاللغومة إيدينية سوماليا سوماليلاند أمبا لغا هادليا واحد لغا هادليا وانتا عد كالو هادا كونفور قلبيد يبدلان يجبلان كالا هادليا ساعة وولي ماركن ما حد كأمي سنتا سوماليا سوماليلاند اليو ومهم runtii muxuu ahaay inay dadku muxuu ahaay hadlaan oo ay dadku isla hadlaan oo isdhaliilaan oo ay istoosiyaan oo runtii waxa weeye aragtidooda waxa weeye waan soo dhaweeyaa oo waxa weeye ra'yigaygan laakiin maxaa ugu jawaaba yani waxa jira runtii Soomaaliya hadaynu nahay arrimo badan oo muran ka taagan yahay oo xaqiiqo aynu ognahay marka haddaan hay Cabdimaalik Sheekh Muuse Aldoon oo runtii yani asxaabta ila shaqeysay waxaan u banbaxnay inaan muxuu ahaay aniga iyo saaxiibaday يعني أنا نكو أكان وحيابها يجا نوجار كأن مدة هم جدي إن أرمى قار كهذا لو ميل قارة أيان نسكو قرنا أو هو أنا كاسترني مركا واحد ها وانو استرنا وانو دسترنا مركا هو مثلا كل واحد يعني نو صباح ذي لبار رمودين الصومالي عدو كويهين هو لما أنتوا ذي عدو كويهين إن عدو شيء الصومالي ليهين أنا يجا هين إيو إنه عدو كلو جده هذا oo iyaga kamida oo la qabyaalad inay leeyihiin sax marka waxa waa Soomaali oo dhan yani Soomaali meel kala digto oo dhan dhibaatadaas haysata waa loo si kala badan yahay laakiin dhibtaasi waa mid guud marka waxaan niri iyagoo dadku muxuu ahaa kala aragti siyaasadda iyagoo kala nidaama iyagoo kala dawladaha iyagoo Djibouti kala jooga Hargeysa jooga Gaarisa jooga Jigjiga jooga Muqdisho jooga inanu bal muxuu ahaa inay naano waryaareen radar ilmaada reeyol wax wada qabsado cadow isuma tiidine kala nidaam hadaan doontaan noqdo laakiin cadowgiin waa kaas weeye yaan la isku kiin jeedin cadow kalena waa leedin qabyaalada ta loo soo marana oo cadowga laftiisu adeegsadana waa qabyaalada marka taasaan muxuu ahaa runtii yani muxuu ahaa aanu meel kasta kaga hadalaa laakiin yani ma aha aragti siyaasadeed ma aha xitaa muxuu ahaa midna kale Soomaaliland ka soo horjeed waxyaabaha badanaaba aan ogahay yani ay dad badan iyo oranaya Soomaaliland ba ka soo horjeeda runtii in badan baan sheegay wax laga yaabaa in dadku maxay aanay daawan anu Soomaaliland kama soo horjeedo laakiin cadawga Soomaaliland baan ka soo horjeeda oo iyo cadawga Soomaali kasta marka intaas halkaas anu cadawgaas ay muuqdee yani arrimihiin kale Soomaali arrimahoodan kale يعني وانكو احتراميا محا arrimaha runtii waa waxyaabo maxaa leegu dhajiyay waa waxyaabo badan maxaa midnimo oo oleynaya يعني waxyaabaha lagu dhajiyay runtii waxa weeye waxyaabaha yani waxyaabo ka weyn ayaa maxaa umada haysta yani annaku maxaa arrimaha Soomaalida iyaga go'aan ka gaaraya inay Soomaali maanta maxaa kala daadato oo ay gobol ka noqoto inay midowdo yani ha aniga Cabdimaalik Muuse Aldoon iyo asxaabtaydu mid gacanta noogu jirta maaha daaima laakiin waa la ku dhajiyaa mid baana ka timi dul yaro mid bimeel bay ka timi meeshii aanu farta ku fiiqanay ku timi meeshii aanu cadawga lahayn ayay ka timi ma noo soo maleegay waa qorshana loo maleegay maadaama iyaga aanu ku shimbiro waaqlayna nidhaana waa ka cadawgii Soomaaliya ka ayaa cadawini ah Soomaaliland oo idinku maxaa Soomaalida ka cadawdi maaha kaasa cadawdiina ayaa kiiba fakiray oo aanu filmaan gaagaaban ka sameynay oo yiri maxaa marka Cabdimaalik saad yani ugu dirta dadkiisa ha Soomaaliland buu ka soo horjeeda waa waxna la ku dhajiyay laakiin xaqiiq maaha oo wanaaga Soomaalida meel kasto ay joogto waxaanu jecelahay in wanaagooda ayaan jecelahay ka talina biidna Ilaahay ana waafajiyo insha Allah dad baa halkan xil buu soo doontay warbaahin baa qortay in xil lagu magacaabay taa maxaa ka dara niyo warbaahintu maaha markii ugu horeysay ay wax qorto aan jirin aniguna badanaaba kama jawaabo wax kasto la qoro waxaan halkan ka cadeynayaa inaanu jirin xil aan soo doontay iyo xil lay magacaabay waaba loo magacaabay bay leeyihiin oo xil baabu hayaaba Cabdimaalik waxa weeye markan aanu Muqdisho joogo toddobaadkii ugu horeeyay ayaaba la soo qorayba marka waxa weeye waxaan u bayaaminaya ummadda meel kasto ay joogto inaanan anigu maxaa ku shuqul lahayn wax xila oo xil anaaba magacaabay oo aniga asxaabtayda magacaabana soonigan ku sheegay labada arrimood baan waynaaba marka ismaba qabanayaan baynan maxaa hadaan meel isku dhajiyo aan xil qabto tii hawlahayga ma qaban karayo anigu waxa weeye kun xil baan helaya meel badan baan ka helaya laakiin walaal arrimahaygan kale ayaa iga muhiimsan inaan qabto oo aan muxuu ahaa wax Soomaalida muxuu ahaa يعني محوها أي تهينا وجدجو أي مهمسن. مقدشة مركب واحد وتمادة ومكالمة برنامج كسين عضوضة وضد كيك وعاونة يسمع. مقدشة مركن يعني دور أرماد بانوني أرمها وحكم ذا نهرت عبدي تهليل أرن كيس إنه محوها لما يلدقنا وحوي وان وجود قلي وحوي هندي إن شاء الله وضنا بإذن الله كريم تاس وحوي عبدي تهليل.
qodob kalena muxuu ahaay waan u nimi oo runtii waxaan doonaynaa inaan iyo socdaal dalalka carabta inaan muxuu ahaay gaadhno oo dee safaaradii noogu dhawaaba muxuu ahaay halkana marka waxaan doonaynaa jawla carabiya oo Kuwait iyo ka bilaamaysa Qatar Imaaraat yani Sacuudiga waxaan doonaynaa inaan muxuu ahaay dee inaan gaadhno oo badanaaba dee gudaha ayaan joognaa marka yani daa'iman dee waxaan aragnaa wasiirro iyo maamullo baxaya markaasaan si waa Soomaali badan oo idila nool baa joogta adiga tiimka uga baxaysan waxaan doonahay inaan baxno qorshahaas jira aniga iyo asxaabtaydu inaan baxno marka waxa weeye insha Allah waxa weeye socdaalkaas oo aan filayo inuu ka bilaamayo Kuwait ama Qatar insha Allah biidhnillah alkareem oo aan gadaal ka soo sheegi doono ayaan muxuu ahay soconaa waxaan doonaa wanaagaas runtii ayaan doonaynaa muxuu ahay inaan muxuu ahay ka talino waa tahay waa soo gabagabeynayna marka waraysiga waa soo gaabinaynaa dadka inta badan kugu dhaliilaya arrimahan siyaasadda iyo arrimahan howlahan la kala wado iyo ma la hadashaa iyo waan wada hadalaa ku soo wacaan oo talooyin iyo wax siiyaan dadku dee maadaama qofkii lagu xidhan yahay maadaama codkiisuna meel fog gaaray dad badan ku xidhan yihiin يعني goob kasta waxa weeye hadal iyo warbixin iyo dadku nooc bay wadaan warbay noo wadaan taageeray wadaan talay wadaan ha waxyaabo badan bay wadaan runtii dadku waa la noolahay intaanu ka awoodi karayno sababtoo ah yani bogi baa buuxa facebooki kii kale account ka baa buuxa whatsapp kii baa buuxa fiber kii meel kasta snapchat waa laga hadlaya marka intaanu ka awoodi karayno waxa weeye dadku waxa weeye way soo hadlayaan oo yani muxuu ahaay waxyaabo badan baanu isweydaarsanaa ninka ugu badan ku soo jeedinayaan maxaa kamid ah niyo qof kastaaba meel buu danaynaya barnaamijka kaalme ku niyo barnaamijka wad niyo barnaamijkan aad ku guda jirtaan wacyi gelinta muxuu ahaay wad niyo arrimaha siyaasadda muxuu ahaay iskaga baxbay dhaahdaan oo iyagana muxuu ahaay dee arrimaan waan ka wada hadalaa marka dadku talooyin badan bay muxuu ahaay runtii ayay wadaan waxay wadaan oo kale arrimo badan oo fikrado badan oo muxuu ahaay Soomaalida ha fikrado badan bay dadku ku wadaan oo dadkii baan la noolahay oo dadkii markaan hadlayno anigu aan barnaamij toos ah soo galayo dadkii baan la noolahay dadkii baa igu xoojinaya nooga gaarsi fariintan maxay kuwa kula adaa madaxda arki kale fariin naga gaarsi way sameeyaan wax kasta way sameynayaan marka dadku يعني dadkeenu niyo dad wacan weeye dadkeena Soomaalidu aad iyo aad u fiican yihiin yani imika barnaamijyadan aanu wadno iyaga qayb ka qaatay iyaga qayb weyn ka qaatay oo anaku waxyaabaha yaab kale aan doonayay aan ilowsanahay imika barnaamijka kaalme ku wuxuu ka bilaabay Burco Tuliyo dadka ugu badanna waa Burco iyo agagaarkaas dadka ka faa'iideystay dadka soo kaalmeynayay ma yahayn qabiil ma yahayn deegaan ma yahayn dad hal siyaasad aaminsan waxay hayeen magaca Soomaalinimo islaamnimo ay dadkaas ku kaalmeynayeen marka wanaaga waxyaabo badan oo aan ka bartay Soomaalida wanaageeda ayaan muxuu ahaay ayaan bartay ilaahay khayr siiyo marka waxaan go'aansanay inaan dhulalka badan ee Soomaalidana dee gaadhno oo yani Muqdisho imika dad baan ku soo bandhignay la soo kaalmeeyay sidii gabadhii muxuu ahaay Dayn ilaa ugu tagnay ilmo yar oo kale aan la kulanay muxuu ahaay qoys xaaladaan soo bandhignaa oo barnaamijkaas waa ku soo bandhig barnaamijka kaalme ku soo bandhig diiradaan saarnaa waxaan doonaynaa halkan waxaan noo qorshaysan muxuu ahaay inaan Garowe tagno waxaan noo qorshaysan Kismaayo waxaan noo qorshaysan Beledweyne insha Allah biidhnillah karim inaanu Soomaalida inaanu barnaamijyada nooc kasta ha noqdaan inaynu geynina marka Soomaali runtii waxa weeye dad yani muxuu ahaay wanaagsan waa tahay nin sidaas mashquul u ah oo telefonkiisu busy yahay oo ka wada jawaabi karin oo WhatsAppkiisu buuxo oo Facebookkiisu buuxo oo maanta oo dhan dad xanuunsan iyo kuwa kaalmo raadinaya iyo kuwa tala wada iyo kuwa hambalyo wada isugu imaanayaan tahay markaad nasato maxaad samaysaa aan faraaqa helo nasashaa faraaqa yar markaa hesho maxaad samaysaa niyo arrimo badan baan muxuu ahaay sameeyaa waxaa jirta mararka qaarkood inaan haddaan fursad u helo waxaan leeyahay hiwaayad xagga sugaanta ayaan isku dayaa inaan wax yar qorqoro waxaan isku dayaa inaan sameeyo wax laxan la yiraahdo laxankaas maxaa sida maaragtay ereyada dadka ay abwaaninta ugu soo dhacaan gabaygu marka maansado ama ku soo degayso kale wax laxan oo kale marihii baad haysaa laakiin laxankii baa ka maqan miya laxankan sameeyaa laxanka ayaa midhaha iga horeeyaba marka waxaad arkaysaa iyadoo gudahaygu laxan ka dhex guuxayo inaan laxan marka laxankaas wuxuu u baahdaa marka qaarkood inaan ku rikbo midho marna midhaha horeeya marka inaan laxan ku rikbo laakiin badanaaba waxa aan isku arkaa laxan baa igu soo dhacaya marka qaarkood laxankaasaan sameeyaa markaan Burco joogo waxaan sameeyaa saacadaha aan faraaqada ugu badan helo ma seexdo horta anigu duhur kadib dadku duhurka ma seexdaan mana qaylo waxaan sameeyaa gaarigaygan ka haystaa xabad Coca-Cola iyo xoogaa xanjaa labadaas jecelo waan iibsadaa baato waxaan jida la yiraahdo waxaan maraa magaalada ayaan dhex maraa iyo koonayaasha magaalada ayaan aad u maraa
wadada maartay berbero baxday wadada caynaba baxday marba inta halka ka gaadho ka soo laabta inta gaariga aan wato waxaan ku alifaa laxan baan sameeyaa waa marka igu haboon aan laxan ku sameeyo laxankaas wuxuu baahay mobilka inaad ku duubtid inaad xasuusatid inaad ku celcelisid marka yani intaas oo laxan baan sameeyo laxamo badan baa iga lumay oo mobil iga raacay qaarna waan xasuustaa marka taasaan waa hiwaayada aan jecelahay ay ka mid tahay laakiin waxa la yiraahdaa waa dhinaca jacaylka kaliya wadaninimo way jirtaa oo iyo waxa jirta oo kale tahriibta xitaa qaar baan ka sameeyay oo dalkayga iyo duruuftiisa daayartaa tahriibaysa dabadaha oo sii jeeda ayaa damaqday diirkayga ayaan xitaa laxan saaray dalkaygiyo duruuftiisa daayartaa tahriibaysa dabadaha u sii jeeda ayaa damaqday diirkayga hey ayaa ila dareemaya dayacada sii bahdaya doc kasta baa ka soo foole sida dadka ina qaadayay haddaad adigu duminayso midii aad ku dooxayso danta guud la luminayo daalimee kufaankiisu hey dalkaygiyo duruuftiisa daayartaa tahriibaysa dabadaha u sii jeeda ayaa damaaday diirkayga hey waa tahay aad iyo aad u mahadsanta waa kaaga mahad celinaya runtii inaad heestaan noogu soo xirtay daawadayaal waraysiga koobnaa aan la yeeshay cabdimaalig muuse coldoon oo samafala ah saaxiibka saxafi ah inta ayaan kusoo gaabinaya uga mahad celinaya waqtigiisa iyo sugaantiisa mar dhow waxaanu ka baqayaaba inuu dhinaca sugaanta nooga leexdee bal xaggan kaalmada noo jooga haddii alla idmo aad u mahadsanta